Weelmarow waxa ay in ka badan 45 kiiloomitir dhinaca bari ka xigtaa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Halkaas howlgal ka dhacay waxaa lagu qaarijiyay horjooge lagu magacaabi jiray Maxamed Biyamaalow. Horjoogahan qawaarijta wuxuu u qaabilsanaa in dhaqaalaha iyo xoolaha uu ka aruuriyo dadka ku nool deegaanka Weelmarow ee gobolka Jubbada Hoose. Horjooge Maxamed Biyamaalow waxa uu ka soo jeedaa magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Horjooge Biyamaalow dadka yaqaana waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa nin arxan daran oo dadka uu ka dhacayo xoolaha ama dhaqaalaha ciddii diidda uu bixin jiray amar ah in la qaarijiyo. Isaga oo ka socdaalay deegaanka lagu magacaabo Weelmarow ee hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka war helay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Jubbaland. Waxa ay u qorsheeyeen howlgalkii lagu soo afjari lahaa ka oo ugu dambeyntii sababay in la qaarijiyo horjoogaha iyo maleeshiyaadkii la socday. Gobolka Jubbada Hoose iyo deegaano kale oo hoostaga gobolka Jubbada Dhexe waxaa bilihii ugu dambeeyay lagu dilayay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka mid ahaa qawaarijta Al-Shabaab, kuwaas oo ka qayb qaadan jiray dhibaataynta shacabka ku nool gobollada Jubbooyinka.